sababta aysan baryahan Barca u qaadin dhagaweynaha baan ku sheegayaa sababtoo ah Barcelona tan iyo 2005 kumaanu guuleysan wax Champions League waqtigu yani Champions League ku guuleysanayeen ciyaaryahanna kala duwan baa goolasho laga helay mar Suarez baa dhalinaya mar Neymar baa dhalinaya mar Messi dhalinaya habeenkii Messi lagu adkeeyo Neymar dhalinaya Suarez dhalinaya hadda sanadahan dambe sababta Barca u liidato waxay tahay Barcelona own goal ayaa ciyaaryahan u ah yani Barcelona marka laga soo tago Messi own goal ayaa ciyaaryahanka ugu badan ee Champions League ugu dhaliya goal tan iyo 2007 ka war tan iyo 2007 lagu leeyahay ciyaartooyga Barca ugu goolasho badan waa Messi 19 gool buu dhaliyay yaa ku xigay weydii own goal baa ku xiga warba ciyaartooy own goal ila jiro Axmed Qadarow ma jiro laakiin Barca own goal ayaa tabar ka ah oo nin kale ma qabaanba marka hadii taas waxay ka dhigan tahay in ciyaaryahanka labaad ee Barca ugu goolasho badan Champions League uu yahay tan iyo 2007 waxay ka dhigan tahay yaa Barca ma qabto ciyaaryahan aan Messi ahayn oo hadii habeenkiisa Messi habeenka la xiro ciyaartooy kale oo bixin kara Barca ma haystay ka dhigan tahay marka waa arin weyn wayaan dhib badan hadii caaw Messi ka xirxirto cid kale oo bixinaysa ma jirto oo sidoo ku qaadaysa marka kooxda Champions League ma qaadi karta marka ciyaartooyga Barca ugu goolasho badan tan iyo 2007 waa Messi 19 gool buu dhaliyay ciyaartooyga ku soo xiga waa own goal bay ku heleen 7 gool kadib waxa ku xiga Usman Qabar iyo Suarez oo dhaliyay 4 gool bal fiiri tan iyo 2007 yalwuri ay Usman Dembele iyo Suarez waxay Champions League ka dhaliyeen 4 gool ka dhaliyeen waxa ka badan own goal intay ku heleen oo ah 7 gool waxaan ninka ugu sareeyay Barca goolasho uu yahay Messi 19 gool uu dhaliyay Champions League ka dhaliyay tan iyo 2007 ninka la ku soo xigana waa own goal marka taas waxay ku tusaysaa Barcelona inaanu qabin nin kale oo Messi marka laga tago oo gool dhaliya mararka qaar own goal ayaa meel lagu soo baxda hadii own goalka la weylaha taas waxay ka dhigan tahay Barcelona habeen kasta inay ku filayd habeenkii Messi aan ba fiicnayn hatta hada fiir habeen dhaweyd gool marka uu Messi dhalin waayay ee labaad own goal ba u yimaaday gool dhali haddana own goal la haysan lahayn ba Barcelona loo yaabi lahaa marka taas waxay ka dhigan tahay Barca nin kale oo aan Messi ahayn oo furdaami kara ma laha habeenkii ku jaqan tahay baryahan Ilaahay baa u soo diray own goal kan bay nasiib ku helay mooyaane xaalku waa si xumaan lahaa marka koox own goal ciyaartooyga ugu goolasho badan uu ka yahay waxay ku tusaysaa hadii aad Messi ka xirto inaynu ka soo harayeen Champions League hore baan u aragnay 4 bay dhaliyeen 3 bir lagu soo diray 3 bay dhaliyeen 4 bir baa lagu soo diray sababtu Barca u qaadi lahayd Champions League waxay tahay Barca ma qabto ciyaartooy kala duwan oo gool dhali kara habeen kaliya la xirana ciyaartooy furdaamin kara waa kooxda ninka labaad ugu goolasho badan uu ka yahay own goal ma ciyaartooy baa own goal no laakiin Barca agteeda ciyaartooy ka yahay oo Lionel Messi ugu gool badan Barca tan iyo Champions League 2007 ninka labaad ugu goolasho badan waa own goal wallahi buu ciyaara Barca